السلام عليكم الصحابة كحرن channel كايماشو رمضان كريم إن شاء الله وحن سوق بين دونا قصوين كسابسا صحابة إن شاء الله إلا يردمات كان بش بركيسان رمضان كفائديسي وعن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان. saxaabi kasta taariikh nololeedkiisa wax unbuu caan ku ahaa waxaynu ognahay in saciid ibnu caamir aljumaaxi allaha ka raali noqde uu caan ku ahaa suhdigiyo in la nacdo dhalaalka adduunka. haddaba cabdullaahi ibnu xudaaf al sahmi wuxuu isagana caan ku ahaa geesinimo iyo in aan loo jixin cadowga alleh. waxayna cabdullaahi u suura gashay inuu la kulmo labadii boqor ee talin jiray wakhtigaasi ee kala ahaa qisra iyo qaysar oo kala xukumi jiray faris iyo room. nasiib wanaag cabdullaahi ibnu xudaaf wuxuu nasiib u yeeshay inuu la kulmo labadaasi boqor. u soo dhowaada muuqaalkayna maanta. sheekada la xiriirta la kulankiisa uu la kulmay boqorkii kisra cabdullaahi waxay ahayd sanadkii 6 ee hijrada kadib markii uu go'aansaday rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu u diro qaar ka mid ah saxaabada boqorada cajamta ah si ay ugu yeeraan diinta islaamka. rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu dareensanaa dhibaatada ay wadato hawshan, waayo saxaabada loo dirayo magaalooyinkaasi waa dad aan aqoon luuqadda ay ku hadlaan dadyowgaasi. waa magaalooyin fogfog taasoo ay weligooda arag. saxaabada waxay dadka iyo boqoradooda ugu yeerayaan waa inay ka tagaan diimaha ay haystaan isla markaasina qaataan diinta islaamka. waa safar halis ah. sidaasi darteed rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu la kulmay saxaabada isagoona u jeediyey khudbad. allah ayuu ku mahadiyey kadibna wuxuu saxaabada ku yidhi waxaan doonayaa inaan qaarkiina u diro boqorada cajamta ah. sidaasi darteed ha i khilaafina sidii reer bani israa'iil u khilaafeen nebigooda ciise calayhi salaam. saxaabadii ayaa yidhi rasuul allow meeshaad doonto noo dir waan fulinaynaa. kadib rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu magacaabay 6 qofood oo ka mid ah saxaabada si ay diinta islaamka u gaarsiiyaan boqorada cajamta ah. 6dii qof ee la magacaabay waxaa ku jiray cabdullaahi ibnu xudaafa al sahmi, waxaana loo doortay inuu gaarsiiyo dhambaalka rasuulka boqorkii kisra. cabdullaahi wuxuu u diyaar garoobay safarkiisa isagoona sagootiyey xaaskiisa iyo carruurtiisa. kadib wuxuu u kicitimay safarkiisa. waa keligii oo axad aan allah ka ahayn lama socdo. wuxuu sii socdaba ilaa uu ka gaaray magaalooyinkii reer faris. kadib wuxuu yimid magaaladii uu degnaa boqorkii kisra. wuxuuna weydiistay inuu u soo geli karo boqorka isagoona weli u sheegay ciidamada kisra inuu u sido dhambaal ama waraaq ku socto kisra. boqorkii kisra wuxuu u fasaxay inuu u soo galo cabdullaahi. sidaasi ayuuna u soo galay cabdullaahi ibnu xudaaf oo ay weli ka muuqato sharaftii iyo cisada islaamka. kisra ayaa u baaqay mid ka mid ah ciidamadiisa inuu ka soo qaado waraaqda uu sido cabdullaahi. hase ahaatee wuu diiday cabdullaahi inuu dhiibo waraaqda. wuxuuna yidhi rasuulkii allah wuxuu i faray inaan gacanta kaa saaro waraaqda, mana laga yaabo inaan khilaafo amarkiisa. intaa kadib boqorkii kisra ayaa waxa uu ku yidhi ninkii faraha ka qaad ha ii soo dhowaaday. kadibna wuxuu cabdullaahi u dhiibay kisra waraaqdii ugu siday rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh. waxaana loo yeeray turjumaan af carabi ah si uu u turjumo waraaqda dhambaalka ah. waraaqdii ayaa la furay kadibna waa la akhriyey. waxaana ku qornaa sida soo socota magaca alleh. kadib warqadani waxay ka socotaa muxamed oo ah rasuulka alleh, waxayna ku socotaa kisra ee boqorka faris. nabadgelyo allah yeelo ciddii raacda hanuunka. markii uu intaa maqlay kisra aad ayuu u carooday. warqadiina wuu dafay oo kadibna wuu jejeexay isagoo aan ogeyn waxa kale ee ku qoran warqadda. isla markaasi aad ayuu u qayliyey isagoo leh ma sidaan ayuu waraaq iigu soo qorayaa isagoo ah addoonkayga. cabdullaahi wuxuu ka dhaqaaqay qasrigii isagoon ogeyn waxa lagu samayn doono, in la dili doono iyo in faraha laga qaadi doono. hase ahaatee wuxuu cabdullaahi naftiisa ku yidhi waxba igama gelin mar haddii aan gutay ammaanadii iyo dhambaalkii rasuulka ee iigu soo dhiibay boqorkii kisra.
markii ay carada ka dantay boqorkii wuxuu ciidamadiisa amar ku siiyey in la soo qabto cabdullaahi. nasiib wanaag ma aysan soo helin, waxay ogaadeen inuu gaaray jasiiradda carabta. cabdullaahi wuxuu yimid magaalada madiina isagoo la kulmay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh, wuxuuna rasuulka u sheegay wixii uu kala kulmay boqorkii kisra iyo inuu jeexjeexay warqaddii uu u siday. rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh aad ayuu ugu carooday arrinka, wuxuuna allaah ka baryey inuu ciribtiro boqortooyada kisra. habaarkii rasuulka waa la aqbalay, wuxuu alla ku saliday kisra inuu dilo wiilkiisa, halkaas ayuuna ku dilay wiilkiisa. taasi waxay ahayd sheekadii dhex martay cabdullaahi ibnu xudaaf iyo boqorkii kisra. qaybta kale la socda insha allah.